doorasho qof iyo cod ah isla mar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ah qodobka shanaad haddaba shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2020-2021 waxaana shirweynuhu soo jeediyay in dawladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gogol Soomaaliyeed oo loo dhan yahay xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo nidaamyadooda gudaha arrintaas oo ka soo horjeeda dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka faragelinta ciidamadeed ee keentay dhimashada dhaawaca iyo barakaca bulsho ee ka dhacday doorashadii koonfur galbeed ee Baydhabo doorashadii galmudug ee Dhuusamareeb iyo colaadda gobolka Gedo ee hadda taagan ku tagrifalka awoodda dawladda sida caburinta xoogaga siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan xukuumadda cunaqabataynta socdaalka hawada iyo xayiraadda waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ansixinta sharciyo aan ku dhisnayn wadatashi iyo wada shaqayn dastuuri ah sida sharciga batroolka midka doorashada sharciga hawada iyo sharciga isgaarsiinta arrimahan oo dhan waxa ay baalmarsan yihiin qodobada dastuuriga ah ee 53aad 54aad 120aad iyo 142aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qodobka 7aad shirweynuhu markuu arkay in la baalmaray heshiiskii dhisidda siyaasadda amniga dalka ee tibaaxayay tababarka qalabaynta iyo hoggaanka ciidanka ee la saxiixay ka hor shirkii London 2017 wuxuu shirweynuhu walaac ka muujiyay in ay dawladdu dhisayso ciidan dhinac u raran oo aan isu dheelitirayn khatarna ku noqon kara amniga